iyadoo maalintii shalay ahayd uu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro uu ku dhawaaqay mudaharaad salmiya isla markaasina ka dhici doona lixda gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa saaka si rasmi salmiya uga dhacay mudaharaadkaasi gudaha magaalada Ceergaabo waxaana taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ay iskugu soo baxeen xafiiska guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku leeyahay magaalada Ceergaabo waxaana ugu horeyntiiba kala hadlay taageerayaasha xisbiga wadani mas'uuliyiinta xisbiga ee gobolka Sanaag gudoomiyaha wacyigelinta xisbiga wadani Cabdullaahi Geeljire wuxuu yiri waxa hadeer laga qaaday xisbiga gudoomiyaha xisbiga wadani ilaaladiisi maxaynu leenahay waa sharci darro waa tii ugu weyn sharci darro waynu cambaareenana waxaan leenahay amniga gudoomiyaha hadii saacada soo socda xukuumaddu qaadi weydo annaga qaadayna annaga mas'uuliyadiisa qaadayna annaga ciidan u sameynayna Soomaha ugu fariinteena waxaan u dirayaa oo kaliya waa labada gole golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka oo aan ka baqayn in cudurrada xunxun xumaha ka galaan oo waxay doonayaan sameynayaan bilaa sharcina madaxweynaha qura ayaa dalka sharci kale iyo labadii xusbina waa loo soo socdaado waa taa ilaaladii laga qaadaya waar ciidan beelad ha samaynina ka daayo ilaalada halkoodii ku celiya waxa samaynaysaan ciidan beeladyo aanu hor taagannahay oo aanu ku hayno koofiyadaha aanu ku hayno haddaanu waayeelka nahay waxaanu idin leenahay fariintayada qaata labada gole qaata madaxweynuhu isaga sharci ka ahoo dee mar haddii sharcigii ku soo ururay dee wax la taliya ma lehe isla soo doonu yeelaya fariintaan soo diraya waxa weeye haddii distoorkii uu farqado badan yeeshay oo la isku garan waayey waa inaad diinta islaamka ku xukuntaan mas'uuliyiintii xisbiga wadani oo xaqdarrada lagu xidhay iyagoo aan kula jirin faldambiyeed gacanta kula jirin oo uu noo ogol yahay inaanu mudaharaad salmiya aanu xarmaaya ku qabsanno aad iyo aad baanu u cambaaraynaynaa waxaanu leenahay shuruud la'aan ha lagu soo daayo dalku wadatashi buu ku nool yahay wadatashiga haddii la diido dhibaato imaanaysa nabadgelyaynu ibina haddaynu Soomaali leenahay nabadgelyada iyo gacanteenna ka bixin waxaanu leenahay caddeer iyo codkaaban baanu ku leenahay taageerayaasha xisbiga wadani anigu waxaan kulmiye maantana waa qiirooday waxaan ku qiiroodo nabadgelyo ku doonaya nin mas'uuli qabanqaabo dagaal ma galo waa ka xaaraan waddanka oo dhan buu u yahay madaxweyne hadduu dhinac wuxuu wadona isaga iyo cidlahunba isku hadhi caaqilla kacbaa la yidhi waanaanay 3 baa jiray weli dhulkaa ma tegin waxaan leeyahay xantu siday u badan tahay muusow ka daa madaxweynihii dalkaad ahayd xantu siday u badan tahay dadweynuhu hadduu kaco ma jirto dawladi dadwowlada shaqaalaad tihiin ninkii shaqadiisa ka soo bixi waayaana halkaa uu joogaa buu fadhiisanayaa halkan isugu soo baxnay inaynu muujinno shucuurteenna aynu ka qabno dalkeennu masaaka halku marayo maxaan ku idhahdaa xisbiga wadani sida uu dee dhulka u jiidayo masiirkii ummadda rabshadi ma jirto ciidanka qaranka ee bilayska waa kaynu ku seexannaa rabshadayn mayno waxaynu ka soo hor jeednaa ciidanka iyo shaqaalaha dawladda kama soo hor jeedno waxaynu ka soo hor jeednaa nidaamka meesha ka jira kulmiya dad yoo wuxuu idin yidhi oo idinka dhaadhiciyey oo idinka iibinaya wuxuu yidhi anaa mudiciya waa maxkamad meeshu anaa mudiciyuu yidhi anaana markhaatiisu anaana maxkamaddii oo ridaya jaajmanka fiitoonna waa leeyahay buu yidhi waxaynu doonaynaa dadkii 3 meelood buu u kala baxay dulmi wade dulmi diide dulmi taageere innagu waxaynu nahay baynu nahay waxaan aad u salaamayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani ee magaalada Ceergaabo inta ay hareerahayga joogto soo ajiibtay 1 jeer 100 jeer 10 jeer baan salaamayaa waa salaamantihiin waxaan idin leeyahay dhalinyaro u badan yihiin noolaada
waxaan idin leeyahay dhalinyaro u badantihiin ilaahay waxaan ka baryayaa kii idin hogaamin lahaa kii wax idin tari lahaa kii idin ka saari lahaa bilaa camalka in ilaahay idin ka dhigo gudoomiye Ciro amiin هلين محيط أفيانك حسبك وداني يحوهيها يددك لحدحداي oo dhan mudaharaadka waan wadayna intay ka gaarayso abid ma joojinayno wixii ka xanaaqaya iyo wixii xanuunsanaya iyaga u taala sida ma isku garanay annagu taayada shidi mayno inta layn mayno inta ku qayli mayno waxay aad gudoomiyaha iyaga hadaan la faragal xornimadiisa la siin way ka sii daraaraysaa wadanka wada u jeedaa waxa ka socda meel walba waxa ka taagan wada ogtiin Muuse Bixiyo waxaan ku leenahay ayaa madaxweynihii naga daafoodada dadka nabad ku soo Adnan Cabdirashiid Ali telefishinka Horyal gudaha magaalada Cadaadis